Somali land waxay halkan ku timi day kamid ah horiyada kana qaar halkan سهلة وانك صلنا كقاضي هذا ورها ساعة ونور والله عاو ورها يو هدا وقتين لو إن لا فريستو الله يصير فريستو الحيس كوجوين بتفجر في سماء الحيس كوجوين بنكشره ماشي وقروح بدن كندا نوان شوه marka waxaan u maleynayaa deewaan xaq baan u yeeshay meesha la geeyo ma fahantay aad baan ugu maadsanyihiin dadkiisa waa meel aad u qurux badan waxa weeyaan meel aan deew maba oran karo maba heli karo ereyadeeda waa inaan u fakaro waa inaan u fariisto waa inaan saara ma noo soo noqonaysaa soo noqonaya haddaan nafta waayin ya salaamisa waxaan salaamayaa horta dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta adduunyada ka joogta waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland jecel xataa waan salaamayaa gaaliya muslimba dadka inta nacibna waxaan leeyahay soo hadeeyay اللهم صل على محمد يا كلام سلامة وحن سلامة يا أرضي جامعة ده Soomaaliland ما سلامة يا وحن سلامة يا أورك عصب قبيلة دي اللي جسمي برعو ما أنت دويد للسمير وسلامة وحن الله وأنا ندي كل شرايا هالكاكا جحية محي هيدا يعني سفر كاي كورن سفر كاي كندا كورن سيدي بدو عرفتها سفر كاي كندا والله ده كل يبقى مهمة دو حياة هيدون ما أنت إيدين مي قالقة إنه بتشوكتا وحان القياس كرنون أفك بنادنكا دي أن لو سو كوبي كرين maxay hayday maalinta inaan kala qayb galo Somaliland ummadda reer Somaliland ee Toronto degan iyo Washington ku deganaa ee ka yimi adduunyada meel kasta iskaga yimi laakiin waxay ku kala duwanaayeen ummadii reer Washington waxa weeyaan xabad kaliya dhigtoo meel walba isaga yimaadeen marka waxaan kula talin lahaa dadka reer Toronto inta la iskaba iloobo Toronto oo kaliya in Canada sanadba meel lagu dhigto ayaaban ka sii jeclaan lahaa waxaan u sheegayaa dadka waxa weeyaan shalay toole markii wadankan la xoreynayay looma xoreynayn reerkaasi ha ku raaxaysto ama reerkaasi ha ku raaxaysto waxa loo xoreynayay in ummadda Somaliland ee nabadda jecel ay ku wada raaxaysto maalintaasina waa inay noqoto maalin ummadda reer Somaliland ay maxay haydayeen wada ciidaan oo caruurta la keeno ka sanad jira iyo ka 80 jiraba ay wada yimaadaan oo la isugu yimaado oo la iswaraysto wadankeeni muxuu baahan yahay wadankeeni maxay naga maqan maxay naga dhiman maxaynu hagaajinay maxay noo haray waxa weeyaan inay noqoto maha wax maxay hayday ficil ka yimaado oo anigu fanaanadahaana waxaan jecelahay sideedaba nabadan jecelahay waxaan jecelahay ummadda Somaliland inay nabad ku noolaato waxaan jecelahay markaan meel nimaadno waxa kaliya teed noogu abaal gudi kartaan waxay tahay inaan meeshaan joogno ay isugu timaadaan waayo anagu shalay markaan ku jirnay anagoo dhalinyaro ah ugumaanaan jirin halka halo tago iyo halka hala tago waxay ahayd in meel la isugu yimaado nabad la ilaaliyo marka waxaan kula talin lahaa dadka maxay hayday ama qalad ka dhaadhacsanaado ama iyagaba sida ilaahay ha u dhaliyo qof dadku waa fareenaaso de mooda noqon doodo wanaagsan mooda noqon karo oo qof qaldan baa jiro isagoo aad moodeenaysa saxsi yahay marka qofka qaldanna inay dadkeenu shacabka u tumaan maahay waa inay ku garab istaagaan oo yiraahdaan waad qaldan tahay qaladkaaga ka soo noqo qofka ay u arkayaan inuu ummadda reer Somaliland kala jibinayna ay geed iskaga xidhaan waayo haddii aanad qofka geed iskaga xidhin waxaan u xusay ururka laga sameeyay burco waxaan arkay aan Toronto ku arkay ayaa waxaan loo dul qaadan karin dadka sameeyayaan aanay ahayn anigu wixii aan dhagahayga ku maqleeyay baan ayaan ka hadlay because markaan SNM ku jiray wixii aan ka sheekeynay waxay ahaayeen wixii aan dhagahayga ku maqleeyay marka waxaan leeyahay dadka dhagahayga aan ku maqleeyay ummadda reer Soomaaliland waxa uma baahna ummadda reer Soomaaliland waxay u baahan tahay in la isku duubnaado in xafladda Soomaaliland mid laga noqdo mana fiicna inaad ummadda adduunyo ku kala jabisaan aad bay u farxintaa marka waxba yaanan ku dheeraan waxaan salaamayaa ummadii meel kasta ay soo dhaweysay ama Washington ha ahaato ama maxay haydayeen Ottawa ha ahaato waxa weeyaan aad baad u mahadsantihiin waa ummadda anu waxaan u mahadceliyaa hadba ummadda intii wanaagsan inta xun way ka reeban tahay oo uma mahadcelinayo oo nin xumaan Somaliland kula dhex jira ciduu dooraba ha ahaadee mahadcelin uma baahna laakiin ummadiina soo dhaweysay
ummadda maxay ahaydeen sida sharafta leh ee ay qadiyadda Somaliland ka tahay daacad ka tahay ee ilaalinaya sharafta iyo jiritaanka Somaliland ee kaynu ku wada midanahay waxaan leeyahay dadkii soo qaban qaabiyay xafladaha halka ka sii wada dadkii soo casuumina waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin dulqaadkaad muujiseen ee u muujiseen jiritaanka iyo qadarinta aad Somaliland qadarinaysaa waxa kaloo mahad celinayaa Haruna News baan mahad celinayaa sida sharafta leh ay maxay ahaydeen xafladii aanu sameynay ummadda reer Somaliland ay nooga aqbaleen inay noo soo gudbiyaan annagaana ka codsanay waxa weeyaan ay maxay ahaydeen website-kii noo soo dhigeen ay dadkaygii ula socdaan inaan weli ka daalin halgankii aanu halkaan kaga jirno weliba gaar ahaan anigu waxa weeyaan ilaa maalintan galay halganka ilaa maanta halganka ku jira ama Faransiiska ha ahaato waad aragtaa wax walba sameeyo Somaliland sameeyo ma soo geliya marka waxaan leeyahay halgankiina way mu dhamaan calanka ma aha inay dhimi la qaato calanka waa in mar walba la sido waa in calanka mar walba aad madaxa iyo gacantaba ku haysaan oonay noqon maalinta ee dhimeen la xasuusto dad badan baa u baahan xasuusta calanka dad badan baa u hiroobaya dad badan baa ku soo hiranaya marka waxaan idin leeyahay hadal badan ma buuxshay aad baan ugu faraxsanahay inaan Toronto imaado aad baan ugu faraxsanahay inaan maxay ahayd ka qayb galo maxay ahayd xafladihii lagu sameeyay Toronto iyo Washington iyo Ottawa waxaan leeyahay aad baan idin wada salaamaya dadka Somaliland waxaanan laba jeer baan waxaan mar saddexaad ku soo celinayaa inay wax ku qaataan ururka burca laga dhawaaqay ee ka soo horjeedka qabyaaladda waayo qabyaaladii xunbay dumisaaxo mahadceliso waxa weeyaan in maxay haydayeen wadankana ay hakrasho ka muuqata ma fiicna waxa weeyaan in wadankeeni aynu dhisno oo aynu adduunyada maxay haydeen dhinac ka galno waxaanan u hambaliyeynayaa waxaan daawaday hadhownaa ka daawaday in shirkad Coca-Cola laga furay Hargeysa waxaad moodaysaa anigu ma haysan been Hargeysa tahay waxaad moodayeen wadan kale tahay aad baan u hambaliyeynayaa dadka aaminay wadankooda ee adduunyadoodii geliyay ciday doonaan bahaadaan maxay haydeen waxaan maadeynayaa dadka baaxteega ay ku soo dhiirada wadankeena waxaan leeyahay inta ka maqanay warwareysayna Somaliland in laga warwaro uma baahna